kulanti wacan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. barnaamijkan wuxuu idin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa xerooyinka lagu xanaaneeyo geela ee magaalada Beledweyne oo sii kordhaya kadib abaarta ka dhacday gobolka. dad u geeriyooday cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar iyo warbixin aan idinkaga hayno xoolo dhaqato hore oo hadda noloshooda ka maareeya shaqada dhagax jabinta. aan ku bilownay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku soo kordhaya bilooyinkii la soo dhaafay xerooyinka lagu xanaaneeyo geela kuwaas oo ay leeyihiin dadkii ku noolaa miyiga balse ay kala soo baxsadeen intii u hartay si aysan abaarta ka jirto gobolka Hiiraan saameyn ugu yeelan. ganacsatadii markii hore magaalada ku noolaa ee baadiyaha ka soo iibsan jiray caanaha geela ayay u fududeysay ganacsigooda iyadoo sidoo kalena il dhaqaale u noqotay dhalinyaro yaqaana sida loo liso geela oo bishii lacag lagu siiyo. geela abaarta miyiga Hiiraan lagala soo cararay lacagaha laga helo caanihiisa ayaa dib loogu iibiyaa baad iyo booyada biyo ah si loogu nafaqeeyo. Shukri Baryare ayaa soo jeedinaysa warbixin ku aadan. xeryaha lagu dhaqda geela ayaa ku soo batay labadii bilood ee la soo dhaafay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ganacsato iyo dad miyiga xoolaha ku dhaqan jiray ay duleedka magaalada ka sameeyeen in ka badan 10 xero taas oo shaqo ay ka heleen qaar ka mid ah bulshada Beledweyne. Ibraahim Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsatada dhaqda geela ayaa sheegay in hadda xerada uu ka hirgeliyay Beledweyne ay ku xareysan yihiin ku dhawaad 70 neef kuwaas oo markii hore baadiyaha loogu hayn jiray balse hadda uu go'aansaday in uu magaalada ku hayo. Ibraahim waxa uu sheegay in sababaha keenay in uu baadiyaha xoolaha ka soo raro ay ka mid tahay abaaraha jira sidoo kale 5 ka mid ah geeliisa ayaa ku dhintay maadaama ay biyo iyo baadba ka jirin miyiga. waxa uu Soomo u sheegay in sanadyadii hore hadba inta irmaan uu keeni jiray magaalada si loo caanateelo balse hadda dhamaantiis uu ku bixiyo biyo iyo daaq loo sameeyo. hadda $180 ayuu ku soo iibiyaa maalinkii balka iyo maankaalka. waxaa inta geela irmaan laga lisaa 30 litir oo caano ah oo lagu kabo shaqaalaha ka howlgala. maalinta adiga caano badan hadda ma laha geelu dashayto alada irmaan maalinta laga yaabaa in laga lisi karo marka ugu dheeraadaan 30 litir. geeli baadiyaha meel wax ku cuno waayay marka waa la beelaa. maanta geelad arkayso dhan geel abaar laga soo xareeyay maalintii wuxuu rabaa hal galeeya iyo hal maakaala iyo 60 kabaayo bal rabaa Mr. Walisa maalinta u yartahay $180 oo difisha aan galnaa. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee yaqaan habka loo raaco loona dhaqo geela ayaa shaqo abuur ka helay xeryaha geela ee laga hirgeliyay magaalada. Cabdinuur Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhowr dhalinyaro ah oo shaqo abuur ay u noqdeen geela lagu soo xareeyay magaalada. waa ku 20 sano jir isaga oo da'diisu tahay 18 sano ayuu noqday geel jire waxa uuna baadiyaha ku ilaalin jiray geel uu lacag ku raaco isaga oo dhaqaalaha yar ee ka soo gala ku biiri jiray hooyadii iyo 4 caruur ah oo ka yaryar oo ay walaal yihiin oo ku nool magaalada. Cali Nuur ayaa shaqadiisu tahay in ay geela siiyaan biyaha balka iyo maankaalka sidoo kale caanaha ayuu ka lisaa taas oo u noqotay fursad wanaagsan oo uu qoyskiisa ugu soo dhawaaday isaga oo shaqadiisa wata. waxa uu sheegay in marka sidaan oo kale xeryaha magaalada lagu xanaaneynayo in ay kala duwan yihiin oo waxa fudud midka magaalada marka baadiyaha la joogo geela waxa uu u baahan yahay ilaalin badan in baadida laga cesho sidoo kale waxa loo arooriyaa mararka qaar meelo fogfog. aniga horta alxamdulillah waa geeli ahaan jiri laakiin ninba shaqaasi u yaqaan moogtahay wali koor geel xeer ku milisina adan alxamdulillah waa habeenana geel xeer la jooga laakiin alxamdulillah waa duurka aqrib badan adiga duurka dhib badan yani inta xawa ka dhib yar marka banaanka tahay adiga alxamdulillah waxaan soo celiyo baadida ka soo celiyo waxaasi waa ilaalis badan oo raba.
qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa sheegay in caanaha laga soo liso geela magaalada lagu heli karo xilli wanaagsan sidoo kale ay ka qiimo yar yihiin kuwa baadiyaha laga keeno. Yuusuf Xasan oo ka mid ah dadka sida joogtada ah caanaha geela u iibsada ayaan kala sheekaystay waxa ay ka bedeleen xeryaha badan ee ku soo kordhay magaalada iyo in uu jiro hoos u dhac xagga qiimaha caanaha ah. Waxaana uu ii sheegay inay joogsadeen inta badan caanihii ka iman jiray deegaanada ku hareeraysan magaalada sababo la xiriira abaaraha dalka ka jira iyadoo xoolaha aysan lahayn wax caanaha oo la soo safriyo. caanihii in la helo iska daaya geeli ayaaba la la'yahay marka saas awgeed marka isku qiimo ma aha xilligaas iyo hadda runtii ani joogtaa u iibsadaa caanaha geela sababtoo ah waxaa guriga ii jooga aabihii oo caanahaas aad ugu baahan marka koombadii marba si waaye mar waa $1.10 mar waa $1.05 marba si waaye ilaa marmarka qaar wuxuu gaaraa 95 Shukri Baryare Maxamuud barnaamijka wadaag Beledweyne. way mahadsan tahay waryaheena Shukri Baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay. dadkii ka barakacay fatahaadii ku dhufatay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee aaday tuulooyin hoos yimaada magaalada ayaa xilligan isku biirsaday duruufo dhanka nolosha ah iyo cudurro ay ka mid yihiin jadeecada iyo shuban biyoodka oo ka dilaacay halka ay ku nool yihiin. waxaa laga soo wariyey tuulooyinka qaar inay u geeriyoodeen dad cudurka shuban biyoodka iyadoona in badan oo ka mid ah carruurta iyo haweenka uu ku dhacay la keenay isbitaalka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo sida la sheegay ay ku haysato dawayiri inkasta oo isbitaalku uu arrintan iska bariyeelay. Maxamed Ibraahim Jimcaale oo ku sugan Jowhar ayaa warbixintan ku eegaya. ilaa 200 oo ruux oo isugu jira caruur, haween iyo dad ah ayay ku dhaceen cudurrada jadeecada, malaariyada iyo shuban biyoodka 8 bilood ee la soo dhaafay, kuwaas oo hadda ka bogsaday qaarkood sida uu inoo sheegay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, kuwaas oo ku nool tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maxamuud Axmed Cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka Libiga ee hoos yimaada Jowhar. waxa uu sheegayaa in 2 ka mid ah caruurtiisa uu ku dhacay cudurka shuban biyoodka bishii la soo dhaafay isaga oo keenay isbitaalka magaalada oo uu rajeynayay in uu ka helo daaweyn balse loo sheegay in aan loo helayn. waxa uu tilmaamay in lagu wargeliyay in ay go'een daawadii loogu talagalay sidaas darteedna ay ka doontaan banaanka si ay caruurtooda dawo loogu helo. Maxamuud caruurtiisa oo ah 2 wiil oo mid uu jiro 8 sano halka kan kalena uu yahay 10 jir ayaa helay qol ka mid ah isbitaalka oo hadda xaaladooda lagula tacaalayo, waxaana uu rajeynayaa in uu kala baxo isbitaalka 4 maalin kadib sida ay dhaqaatiirta u sheegeen. waxa uu sheegay in hadda qoyskiisa ay barakac ku yihiin tuulada Sariiraale kadib markii ay saameyn xoogan ku yeelatay fatahaadii ka dhacday gobolka, taas oo ay ka baabi'isay dhul beereed dhan 3 hektar. waxaa jira shuban biyooda jira caruurta ku dhacay caruurta 5 sano oo maaragtay ilmaha yarka 10 sano ka yar waxaa jira jadeeco xataa waa jirtay oo inkastayna zaa'id ayna ahayn waa maaragtay waa dhib badan doon maaragtay ku soo qaad qofkii ilaahay kuma samidiide bajaaj raadi waa maaragtay barkay gurmad oo caafimaad oo hadda soo gaarayo ma jirin oo maaragtay marka waxay nagu noqotay shida badan aan kala kulnay isbitaalka marka imaanay laftirkeeda waana ku sheegay saameyn badan ay nagu yeelato isbitaalka laftirkiisa maaragtay nagu noqday wax oo hadda oo wixii aan ugu imaanay wax ka qaba waay shakhsiyan waxa ay saameeyay maaragtay 2 cunug shuban ay iga dhacay. waxaa jirta ilaa iyo 3 caruur ah oo u geeriyootay cudurka shuban biyoodka tuulada Maandheere oo qiyaastii 6 kiiloomitir dhanka koonfur ka xigta Jowhar, sidoo kalena ay jiraan dad kale oo aan tiradooda la xaqiijin karin oo cudurka uu ku dhacay. agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Shabeellada Dhexe Dr. Cabdiraxmaan Dufle ayaa sheegay in 178 ruux uu ku dhacay shuban biyoodka la soo gaarsiiyay isbitaalka tan iyo bishii Oktoobar, iyadoo 90 ka mid ah dadkaasi ay yihiin caruur halka ay u geeriyoodeen 3 qof oo 2 ka mid ah isbitaalka gudihiisa ay ku dhinteen halka ruuxa kalena uu geeriyooday iyadoo aan isbitaalka la soo gaarsiin.
waxa uu tilmaamay in bukaanada la xanuunsan cudurka ee la keenay isbitaalka in ay u sameeyeen daaweyn sidoo kale ay jiraan dhaqaatiir habeen iyo maalin heegan ugu jira sida ay ula tacaali lahaayeen dadkan loo keeno. Dr. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dadka uu ku dhacay cudurka shuban biyoodka intooda badan laga keeno tuulooyinka Maandheere iyo Raqayle sidoo kalena beeniyay cabashada dadka qaar ee ay jeedinayaan oo ah in ay jirto dawayari isbitaalkana ay gacanta ku hayaan hay-ad lagu magacaabo Terasol Dala iyo wasaaradda caafimaadka Hirshabelle isla markaana ay diyaar u yihiin inay mar walba bukaanada xaaladooda wax ugu qabtaan sida ugu habboon. waxaa soo gashay isbitaalka 178 qof 5 sano waxaa ka yar 9 88na waa inta 5 sano ka weyn 6 sano laga bilaabo ilaa iyo da'da ugu dambayso. ma sheegin aniga daawo yari baa jirto ilaa xad daawo waan haysanaa laakiin hadduu shubanku sii socdo waan u baahanaynaa daaweyn dheeriya waan u baahanaynaa had walba waxay ku xiran tahay siday u yimaadaan yacni bukaanka siduu u yimaado xaddiga bukaanka ayay ku xiran tahay daawadu free waaye isbitaalka weligiisba daawo lacag laga qaada ma jirto. tuulooyinka ay ka dilaaceen cudurrada ay ka midka yihiin jadeecada malaariyada iyo shuban biyoodka ayaa kala ah Maandheere, Deemasame, Boodaale, Jiilaale iyo Gaashaanle oo dhammaantood dhaca jiinka webiga iyadoo aysan jirin xarumo caafimaad oo deegaanadan ku yaala. Cabdulle Raage Tifow oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee degan tuulada Xanshooley oo hoos timaaday Jowhar ayaa sheegaya in marka laga soo tago cudurrada uu ka midka yahay shuban biyoodka ee deegaanka ka jira ay u dheer tahay in ay go'doomiyeen fatahaadaha webiga ee dhacay. waxa uu tilmaamay in caanihii ay u safrin jireen magaalada aysan qaadin 3 bil ee la soo dhaafay maadaama ay biyaha ka jareen isu socodka taasna ay hadda ku dareemayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Cabdulle iyo qoyskiisa oo sidoo kale ahaa beeraley ayaan hadda haysan beertoodii maadaama ay ka qaadeen biyaha walina ay ku jiraan biyaha oo aysan beeri karin isaga oo tilmaamay in ay u baahan yihiin in laga maareeyo biyaha si dib ugu soo laabato noloshoodii caadiga ahayd. beerihii ilaa iyo Xanshooley markaan kaaga hadla kaligeed jow oo anugu aan hadda ku nool noon degan oo tuulooyinka kalena biyo baxada ay galeen aynana mid yihiin waxyeelo aan waxaan dhihi karnaa intaasoo ku naytar ku dhawaada gooday oo dalag oo ku jiray dalaga noocyadiisa kala duwan waliba waxaa ku jiray diir galeeya ku jirtay qaraa ku jiray sisinaa ku jirtay. adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dergiyo nin dhowr qaday andefay dergiyo nin dhowr qaday andefay esigiyo laboodba hawli kama dhamaatay qof waliba wasii dhibay dhafuurkay ku taala esigiyo laboodba hawli kama dhamaatay qof waliba wasii dhibay dhafuurkay ku taala anadawaygi jacildibkaasaan ladhedheeliyay anadawaygi jacildibkaasaan ladhedheeliyay. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya. xoolo dhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaarkood oo ay si daran u saameysay abaarta ka jirta ayaa xilligan helay shaqooyin ay ku dabaraan nolosha qoyskooda. xoolahoodii oo dhammaaday intooda badan iyo shaqo la'aan ayaa isku biirsaday balse
waxa ay hadda deegaano hoos yimaada Gurceel ka qotaan dhagaxa guryaha lagu dhiso kadibna dadka ay kasii iibsadaan. qaarkood ayay tani u noqotay fursad wanaagsan oo ay ku badbaadiyaan tiro yar oo xoolahooda uga hartay iyo qoyskoodaba. Cabdiqadar Xasan oo Gurceel jooga ayaa soo jeedinaya warbixintan. deegaanada duleedka magaalada ee dhagaxa dhismaha lagala baxo oo ay ka mid yihiin Ciljirow, Landheer, Dalays, Cabdigurad iyo Ciise Xarsaxade oo ah meelaha laga keena dhagaxa guryaha magaalada lagu dhiso ayay dadka reer miyiga ah ku dhaqan ka bilaabeen in dhagaxa ay kala baxaan si noloshooda ay uga maareeyaan. Nuur Sheekh Xuseen waxa uu nolosha qoyskiisa ka dabaraa dhagax uu kala baxo deegaanka Landheer oo dhowr kiiloomitir u jirta degmada Gurceel ee maamulka Galmudug. Nuur arrinkan waxa uu bilaabay 2 bil ka hor. shaqadan ka hor Nuur waxa uu ahaa mid xoolo dhaqato ah, nolosha reerkiisuna ay ku tiirsan tahay xoolaha ay dhaqdaan oo waxa uu lahaa ku dhawaad tiro ari ah, balse abaarta jirta awgeed hadda arigiisu waa 40 neef. Aabba Nuur oo qoyskiisu uu ka kooban yahay 4 carruur iyo hooyadii dhashay ayay duruuftu tustay in nolosha reerkiisa uu ka dabaro dhagaxa uu la baxo maadaama uu yahay qofka kaliya ee qoyskiisu ay sugayaan oo baadiyihii fogaana uu ka soo guuray oo uu soo degay deegaanka Landheer ee duleedka magaalada. Nuur waxa uu xusay in lacag u dhaxaysa 150 ilaa 200 dollar uu ka helo bishii, taas oo wax badan ka bedeshay noloshooda 2 bilood ee la soo dhaafay. dhagxaantan annaga meelo kama helno, dhulka ayaan ka soo bixinaa. markii dhagxaantu ay noo bataan noo ururaan loor ama 2 loor noqdaan kadibna waan iibinaa. dhagxaantan ka hor aniga waxaan ahaa nin aad u xoolo badan ayaan ahay, xoolo dhaqato ayaan ahay. xoolihiina markii abaar timaaday oo rooblaan dhacday xoolihii qayb ka midan waa baabeen, qayb yar ayaa hartay, qaybtaasna weli way joogaan. marka sidaa darteeda dhagxaantaasaa marka booskii aan kusii buuxiyey, booskii xoolihii qayb ka mida. wallaahi horta alxamdulilah waa nagu filan tahay. dhagxaantaas markaan iibino wixii nooga soo baxo raashinkeeni iyo noloshayna way maareyn kartaa. Bashiir Dhubad Xirsi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhagaxa ka shaqeysa. wuxuu nolosha qoyskiisa oo reer miyi ah ka maareeyaa dhagax uu isagu raro. Bashiir oo uu ahaa reerkooda xoolo dhaqato kuna tiirsadaa noloshooda xoolaha ay dhaqdaan ka hor inta aysan ka dhammaan arigii ay lahaayeen, isagoo 3 bil ka hor deegaanka Cabdigurad ka bilaabay shaqadan kadib markii nin ay saaxiibo yihiin ku wargeliyay inay jirto fursad shaqo uu hayo. Bashiir ayaa waxa uu ka mid yahay 2 qof ee dhagaxa saara gaariga iskarogaha ah iyadoo la siinayo marka ay raraan $3 oo baabuurka buuxa oo dhagaxa ay ku raraan in 2 qofkiiba $3 la siiyo. waxa uu tilmaamay in maalinba ay si tahay mar uu waayo marna uu helo shaqadan 2 ilaa 3 gaari uu mararka qaarkood raro sida uu tilmaamay. waxaanan halkan u imid nolosha in aan ka maareeyo dhagaxaan arkaysid oo aan nolosha hadda aan anigeeyo nin kale saaxiibkeeyo uu ugu wargeliyay in meesha uu asaga iga soo horeeyo ka shaqeeyo. wallaahi horta inkastoo nasiib taho maalina la helo maalina la waayo, laakiin meeshaan maalinkii aan helno waxaan ka helnaa lacag $6 inkastoo badana aan helno oo anigii iyo dadkii noloshii aan ka maareyno dadkii aan kasoo tagnay oo dhibaatada ku jira. Cabdinaasir Sheekh Salaad waxa uu ka mid yahay darawallada, gaar ahaan darawallada wada baabuurta loo yaqaano iskarogaha ee dhagaxa dhismaha ka soo abuula deegaanada miyiga ah ee dhagaxa lagala baxo. wuxuu barnaamijka wadaaga u sheegay in dhagaxa dhismaha ay u doonaan deegaanada miyiga ah oo ay ka soo iibiyaan reer miyi xoolo dhaqato ah oo ka faa'iideystay in dhagaxa ay soo saaraan marka ay saameysay abaartu. Cabdinaasir waxa uu tilmaamay in lowrka dhagaxa ah ama gaariga buuxa uu ka siiyo lacag dhan $15 sidaasna looga soo raro gaariga oo buuxa. wuxuu ii sheegay in markii hore laga siin jiray lacag ka badan tan ay hadda uga iibsadaan reer miyiga, iyaguna ay u noqotay il dhaqaale ay ka sameeyaan. waxaa dhagaxaanta kasoo iibsada niman iyagu qodo, nimankaasoo markii hore ahaa xoolo dhaqato ahaa. iyagaana markii ay soo saaraan dhagaxa kadib ayaan kasoo iibsanaa, loorkiina $15 ka siinaa. waagi hore niyo waxaa jiri jirtay shaqo dhagaxaas ku saabsan qof ka shaqeeya waa yaraa jirtay, si loogu helo waa dhib badnaa jirtay. hadda laakiin waxaa u maleysaa inay dadka ku bateen, weliba dadka reer miyiga ah xoolo dhaqatada iyagoo shaqo meeshaas ka dhigtay.
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha sidee looga badbaadi karaa abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka dhaca nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacadan mahadsanidin